السلام عليكم. waxay naga soo codsadeen qaar ka mid ah asxaabtu geemkan inaan ka soo hadalno dhaho Subway. Haddaba waxaan isla eegaynaa qisada geemkan. Laga yaabo inaad ciyaartay geemkan ama aad aragtay qof ciyaaraya. Waa wiil ka yar oo lagu magacaabo Peter. Haddaba Peter isagoo 4 jir ah ayaa waxa uu bilaabay inuu gidaarada wasakhayo una ku qarqaro rinjiga yar ee cagada ku jira. Haddaba waalidkii way maagi jireen markasta waxay oran jireen ka daa gidaarada sawirradii xad ku qarqaraysid. haddaba wiilka reer Peter la dhaho guriga wuxuu ku sawir jiray sawir aad iyo aad u qurux badan laakiin waalidkii way markasta way maagi jireen sawirradana ma eegi jirin waana rinjeen jireen guriga. haddaba maalmaha ka mid ah ayaa iskuulkiisa waxa ka dhacday xaflad. haddaba Janice yar baa wadaagtay oo gidaar ayaa wax ku sawiray sawir aad iyo aad u qurux badan. maamulihii ayaa arkay waxaanu garaacay aabihii xukuri kaalay wiilkaaga khalad ayaa uu sameeyay. haddaba Peter aabihii waa u baqay waxaan islahaa talo inankaaga iskuulka miyaa laga eri doonaa talo lacag baa laga qaadi doonaa ganaaxa. haddaba maamulihii waxa ku yiri inankaaga hubi ayaa uu leeyahay hiba ayaa uu leeyahay xagga sawirrada aad buu wanaagsan yahay inankaaga garab istaag oo dhiirigeli. intaa wixii ka dambeysay aabihii waxa uu sameyn jiray intuu geeyo guri weyn ayaa ku yiri waxa aad ku sawiro had markuu ka buuxsamana waan ka rinjeenaya oo ku hagaajinaya. haddaba Peter aad iyo aad ayaa u farxay waayo wixii uu jeclaa ayaa lagu sii dhiirigeliyay oo qalabkii la siiyay. haddaba wiilka yar iskuul ayaa u dhigan jiray markuu iskuul ka yimaadana aabihii ayaa meel u fadhiisan jiray meeshana waxay ahayd laamiga tareenada meel u dhow. haddaba maalmaha ka mid ah ayaa Peter soo qatay caagadiisii yareed waxaana ku sawiray gidaarada wixii uu sawiri jiray. haddaba waxa arkay askari waana ku qariyay warkada ka daabu kuuri. haddaba Peter waa baqay waanu cararay laamiga tareenada askariga ayaa eryaday wadaba cararay. Peterna waxa uu bilaabay inuu gidaaradii ku sawiro wax isagoo ordaya. haddaba Peter waxa jiray tareen sidii baana ku dhintay. haddaba aabihii kooma ayaa u galay markuu maqlay hadalka waayo inanka wiilkiisa yar oo dadba ka lahaa la soo kacay maskaxda ayaa dhintay. haddaba aabihii muddo kadib waxa uu tagay shirkad waxaanu yiri inankaaga yaraa waxaanu sameyn karaa si aan loo ilaawin. waxaanu yiri waxa sameynaya geem sidoo uu dhintay. haddaba waxa dib ugu noqotaa markuu askarigu eryanayo oo cararayo laamiga tareenka una urursanayo lacagta oo gidaarada ku sawirayo wax halkaas halka laga soo qaatay geemkan. haddaba geemkan waxa laga qaadanayaa in awlaadda la ogaado oo aan la cambusin way ciyaalku cambusaada waxba kuma laha. ixtiraam awlaadaada say ku ixtiraamaan markaad weynaato. wassalaamu calaykum.